asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada faallooyinkeenii ciyaaraha waa hormood t v fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe saar gambaleelka furo commentigana xagga hoose nagu reeb sideen wada ogsoontihiinba maanta waxaa ka dhacday cayaar aada u kulul aada u xamaasad badan garoonka hargeysa stadium oo u dhexaysay gobolka hawd iyo daadmareed cayaartaasoo rabshado ka dhasheen kadib markii ay hawd diideen gool markaa lagu laaday oo halkan ay ka dhacday gacan ka hadal loola tegay ninkii markaa ka ah garsooraha sidoo kale iyaduna waxaa jirtay in dowladdu ay ciidamo hor duldhigtay aada u fara badan runtii ay duldhigtay garoonka kubadda cagta iyadoo isku dayay iyaguna inay amniga sugaan laakiin dadyow fara badan ay u fahmeen in ay tahay kicin dadweyne oo dadka la kicinayo dad badan baa saa u fahmay runtii waxayna cayaarta u sii yeeshay xaraarad saayida isku soo wada duub oo caawa waxaa ka dhacay rabshada magaalada hargeysa iyadoo meelaha qaarkood garoonka agtiisa dab lagu shiday dadka qaarna waxay leeyihin garoonka waa la gubay ilaa iyo hadda go-aanka muu soo bixin wasaaradda cayaaraha oo u dhigan in uu daadmareer guuleystay iyo in ay cayaarta mar dambe